dawlad kasta waxay ku noolaataa ama ay ku dhimataa tayada ay leedahay maamulkeeda. boqortooyada Ajuuraan waxay ahayd mid ka mid ah boqortooyinkii ugu nidaamka wanaagsanaa ee Afrikaan qaaday intii u dhaxaysay qarnigii 13aad ilaa 17aad. waxaa lagu yaqaanay hanaan maamul oo hufan, cadaalad ku dhisan, una adeegaya shacabka si ay u helaan nabad, horumar iyo xasillooni. guushoodu waxay salka ku haysay boqortooyada laba tiir oo waaweyn: maamul adag oo nidaamsan iyo cadaalad lagu saleeyay shareecada Islaamka. haddaba qaybtan waxaan ku daahfuri doonaa sida boqortooyada Ajuuraan u maamuli jirtay dhulkeeda, dadkeeda iyo nidaamkoodii cadaaladeed ee ay ku caanbaxday. inteena u gudbin qaybteennii labaad, waxaan ka codsanayaa channelka haddaad ku cusub tahay inaad subscribe saartid. qaab dhismeedka iyo maamulka. boqortooyada Ajuuraan waxay lahayd nidaam dawladeed oo si fiican u kala sareeya kuna dhisan talo wadaag iyo diinta Islaamka. qaab dhismeedka koowaad, boqorka ama amiirka wuxuu ahaa hogaamiyaha ugu sareeya dhanka diinta iyo dawladnimada. waxaa laga tixgelin jiray wakiilka Ilaahay dhulka, awoodiisana waxaa laga aaminsanaa inay tahay mid barakaysan. go'aamada waaweyn wuxuu u mari jiray boqorka talo culimo iyo odayaal. qaab dhismeedka labaad, gole talo wadaag ah. guddigan waxaa ka mid ah culimo diin iyo odayaasha dhaqanka. waxay boqorka kala tashan jireen cadaaladda, dagaalada iyo difaaca, arrimaha dhaqaalaha iyo canshuuraha. qaab dhismeedka saddexaad, maamul goboleedyo. boqortooyadu waxay u qaybsaneyd qaybo hooseedyo maamul ah, mid kastana waxaa maamuli jiray wakiil si toos ah ugu xiran boqorka. wakiiladu waxay mas'uul ka ahaayeen ururinta canshuuraha, ilaalinta nabadgelyada iyo ku dhaqanka sharciga Islaamka. cadaalad ku dhisan diinta. boqortooyada Ajuuraan waxay si gaar ah u hirgelisay nidaam cadaaladeed oo waafaqsan shareecada Islaamka. qaadiga ama garsooraha ayaa dhexdhexaadin jiray khilaafaadka bulshada, dacwad kastana waxaa lagu saleyn jiray markhaatiyo sax ah iyo caddeymo muuqdo. xukunnadu waa la caddayn jiray, waxaana dembiilayaasha lagu ciqaabi jiray si waafaqsan shareecada Islaamka. nidaamka cadaaladeed wuxuu u horseeday boqortooyada Ajuuraan kalsoonida shacabka, xasillooni bulsho iyo sharciyad xooggan. ilaalinta biyaha iyo maamulka deegaanka. boqortooyada Ajuuraan waxay si heer sare ah ugu shaqaysay ilaalinta deegaanka, gaar ahaan kheyraadka biyaha. waxay dhiseen ceelal waara, kuwaasoo qaarkood weli shaqaynaya ilaa maanta. waxaa jiray nidaam jadwalaysan oo lagu kala isticmaali jiray biyaha. beeralayda, xoolo dhaqatada iyo dadka deegaanka mid kasta wuxuu lahaa waqti go'an oo biyaha loo oggolaado. ceel kasta wuxuu lahaa waardiye u xilsaaran ilaalinta iyo nidaamka isticmaalka biyaha. haddaba ceelasha Ajuuraan ee Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan waa dhaxal muuqda oo caddaynaya heerka maamulka deegaanka. nidaamka canshuuraha iyo dhaqaalaha. boqortooyadu waxay lahayd nidaam hufan oo canshuureed. waxaa canshuuraha laga qaadi jiray ganacsatada, doonyaha ku xirta dekedaha, beeralayda iyo xoolo dhaqatada. dhaqaalahaasi wuxuu ku bixi jiray dhismaha ceelasha iyo waddooyinka, ciidamada ammaanka, kor u qaadista diinta iyo waxbarashada. waxaana la ogaa halka ay dhaqaalahaas ku baxayeen, taasina waxay abuurtay daacadnimo iyo kalsooni ay shacabka ah. ciidamada iyo ammaanka gudaha. boqortooyada Ajuuraan waxay lahayd ciidamo rasmi ah oo si xooggan u suga ammaanka. ciidamadu waxay ilaalin jireen dekedaha, ceelasha biyaha iyo magaalooyinka waaweyn. waxay lahaayeen tababaro joogto ah iyo xeerar ciidan oo adag. waxaa la sheegaa in ciidanka Ajuuraan uu awood u lahaa inuu la dagaalamo markabo dagaal oo ajnabi ah, taasoo muujinaysay heerka awoodda iyo cabsida laga qabo boqortooyada. waxbarashada iyo diinta. waxbarashadu waxay ahayd tiir weyn oo ka mid ahaa haybadda boqortooyada. waxaa jiray madrasooyin ama dugsiyooyin diini ah ee ku yaala magaalooyinka waaweyn. waxyaabaha laga baran jiray waxaa ka mid ahaa qur-aanka kariimka, fiqiga islaamiga, xisaabta iyo akhlaaqda iyo maamulka. culimo diinku waxay door weyn ku lahaayeen la talinta boqorka, xalinta khilaafaadka iyo wacyigelinta bulshada. haddaba ugu dambeyntii, qaybteennii labaad, dawlad ku dhisan maamul iyo diin. boqortooyada Ajuuraan waxay ahayd tusaale dhammaystiran oo muujinaya in maamul wanaagsan iyo cadaalad diimeed ay iswaafaqi karaan. in Soomaalidii hore u lahayd nidaam dawladeed oo adag, mid cadaalad iyo horumar ku dhisan. haddaba dhibaatada haysata maanta dalkeena waxay noqon lahayd mid laga hortago haddii aan ka faa'iidaysan lahayn dhaxalkii ay ka tageen boqortooyinkii naga horeeyey. qaybteennii labaad intaa ayay ku eg tahay. waxaan kaa codsanayaa channelka haddaad ku cusub tahay inaad subscribe saartid. aad u mahadsan tahay.